baa lagu xukumay kiiskani waa sax oo Asmaa Ismaaciil Cabdiraxmaan baa leeyahay ana adeerka baan ahay Cabdiraxmaan Xasan ahay ila adeerkay walaa marka baa lagu xukumay kiiskani waa sax oo kiisaska hore wuxuu la wadaagaa kufsi baa dhacay muuqaal baa laga duubay laakiin wuxuu uga bedelan yahay kiiskan wuxuu gacanta u galay markii ugu horeysay ururka al-shabaab oo ayagu gacanta ku dhigay gabadha kufsiga iyo dibka loo geystay iyo mid kamid ah raggii dibka geystay laba kamid ah raggaasina waa ay baxsadeen oo ilaa hadda waa la baadi goobaya waxaan rabaa inaan xogtaan inii faahfaahiyo waliba si faahfaahsan marka waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan loof saadaan siina share garaysaan si uu meel fog u gaaro soo dhawaada sida la ii sheegay ururka al-shabaab oo kiiskan gacanta ku dhigay baaritaan ayay sameeyeen waxay sheegeen inay ogaadeen in gabadhu ay raalli ka ahayd in loo galmoodo balse aysan raalli ka ahayn in muuqaal laga duubo shareecadu waxay ka qabto in qof markale muuqaal cusub isku soo noqon wanaagsan oo xiiso leh وإن سلامة يا صحابتي الغالية صحابتي عصب حالي سودا وهذا صحابتي هراء اللي جوتر محلية مرة بعد مرة حادبه وإذن مهالعيلنا يا مدحنا وسارنتي هين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي الغالية ساكسو أركتين بفيديو وهرنعي السبحان ربعنا كهذا لبا فيديو أو ما ركتاي آدي حساسو هربعنا كهالله أميدر بدقيقة غير سكرتاي قدو إلهي كرال نقضو إلهي أودر ونوع قلاله ولا أديما يا أدينا دعايو أصحابتي القالية سيدا هذا أساسو أرقنبو وحان إسلسو لغيسنا أوجيدين وحان كده هايتي وحان كنت الماما حتى مقرنا أود بانشيرين حقايقو أفكيبا تشوق ذا قبي والله وحان كنت الماما مقرنا فالكي فاشي حما وقحوشك أها وآدك أو رقنك حمد أها أو قرعنا oo inta la sameeyay haddana social media Facebook iyo meel wasas lagu soo yaacshi baa raba inaan ka hadlo iyo dhalinyaradii sameysay dhalinyaro ma dhigi karaan wax nolosha ka dhacay oo wareersan oo inkaar ku dhacday ya social media ilmaha daawado telefoonada ilmaha daawado waxaan ku dhahay teen والله وحن كو هذا ما قرنايو وحن كدهنا ما قرنايو لكن وهذا لو لما دايو محل ما تقانا افنول هذا المدايا لير افنول هذا المدايا صحابتي قاليغا waxa aan soo arkay iyo waxaad aragteen adinka waa aragteen Facebook-gayga shala markaa furay ku aan si adinka soo bilow 8 saac ka soo bilow ilaa ay xalay Facebook-gayga markaa furay dadku ku jiro 6,000 oo qof ku jirta oo maleynaa ama dees ay ku dhawayeen qof walba wuxuu share gareynay oo dhigayay ama sawir ha ahaato ama video ha ahaatee ilmahaas video-ga ciyaalkaas dhaqanka xun oo bila akhlaaqda way soo sameeyeen oo dhigay waxa waaye إلهي الدنبي وابعد كجش أو إلهي الدنبي وابعد كجش دنبي إلهي أد كجش أديك هكوبو هذا محاو فافينا محاو ورجينا محا مرقاتيال أسمه سنة دنبي جنب وابعد جشة مرقاتي محاو أسمه سنة تنكلت أنا وحين ودينا الصومالية علامة دان إنتي نوجا إمات علامة دان محيتها أنا وما قرنا محيتها ده حلا معنينا أيوة نهايان قوم كاسك إمات إيو وحاسكينا إيو قارا كنت إيو علامة اللي قندها أركي لكن حتى ما أخا يا ما كان ويكي لقن حمد دوبا أيوة علامة نوعانا ورجنا محيتها أنا ما قرن وهي محيتها حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي وحنا كبرينا إنه حفظ فسهاد يلقن حمد كجرت الدوم كان إلهي إنه شرط نقدوا إلهي كبرينا waxaa maqlayaa in dhalinyarada la soo qabtay oo liir waa la soo qabtay oo waa la hayaa hal la haayo hana la soo qabto waa macso kor way ku fiicantahay waxaan oo kale iyo wixii la mid abo in la soo qabto way ku fiican wixii soo qabtana waxaan leeyahay ilaahay jannada ha inuu kugu bishaareeyo wallahi oo billaah ana waxaan leeyahay wixii soo qabtay iyo wixii soo sheegay iyo wixii soo keenay kuwaas oo soo qabtay ilaahay jannada ha inuu kugu bishaareeyo
تنكلت أنا فيديو وان فيرسدي أنا فيديو وان فيرسدي قال أنا فيديو هرت مركو أو فيديو أنا بحان كأركي إن 59 minute عن 59 second عن كأركي 1 minute ما دمان second عن كأركي وح 1 minute دمان أركي أنا إنه أنت سكبدين هاي إن كلاته وي جبر ويقول هذا أنت سو كبدين هاي أما هو صدرها هاي صدرني قاعد أفهم كل هاي لكن أنا أنت سانكارك أنت سانكاركنا aniga marka aan fiidiyowga fiiriyay aniga gabadha seeto qabriya isugaay 2 mitir qof ila galaayana ma lahan ismalihi dhaleecayso oo wiilasha dib ay salahayn ku tir ismalihi wiilashana waa saqajaamin gabadhana saqajaamad waa gabdha la xoogaay anaga fiidiyowalkooda wana loo soo diri jiray waa arki jirnay gabdha la kufsanaayo gabdha la faraxmeynaayo gabadhaaneeto aniga waxaan aaminsanahay shaqsinimadeeda aniga wixii qarsoon ma ogi ilaahay waa wixii qarsoon laakiin aniga waxaan aaminsanahay in raali ka ahayd falkaas oo sabab ay raali uga ahayd ya saacaday fiirinay saacada u xiran waryaa timekii wuu dhamaaday ay leedahay timeka dhamaaday oo sugaysay muxuu yahay ya timeka ay u qabatay oo dhamaaday ay sugaysay maxaa waaye wuxuu dhahay waxaan 2 minute 2 minute ama 2 minute waaye saa u seexuulay oo ninkaas hebel ku seexuulay way saxana wayele ya marka ilaahay laga cabsado gabdhaha la kuwa la kufsaday waa la farxum oo cid farxumaysan maraan gabadhaasi ana waxaan aaminsanahay falkaas in raali ka aheedan aaminsanahay haddaan daroogo inta la siin ul miirkeeda doorsanaan qof miirkeeda doorsayahan oo ma arkeen qof maxaan ku dhahay wax ka dhiman yihiin oo ma arkeen qof caadi ah oo xay ah oo caafimaad qaba ahayd sida ila muuqatay ani ya marka Soomaali Maxamedey horta raggi soo qabtay dadkii soo qabtay rag iyo dumar oo soo qabtay aniga waa u mahadcelinaa ilaahay ha idin dhaafo cadaabtan Allah in ka xoreeyo leef waxa naga qabateen faazuq fixshi maxaan ku dhahaatay maxaan ku dhahay macsi banaanka la dhiganayo oo lagu faanayo macsi banaanka la dhiganayo waraa waa la tuman jiray waa la dhali jiray maxaan ku dhahay baqti waa jiri jiray laakiin wuu qarsoonaan jiray wax la xantaa maqli jirna Ibrahim Hassan la dhahay laakiin wax banaan yar oo la duubay oo lagu faanay ana ma arki jirin xataa adduunyada halowday marba macsiid ku faanaysiin xataa naagta la isu hay sidii wan fuulay la fuulay la isu hay wananka idaha markii fuulay saddex afar isu raaxi jireen xataa waxaan xasbunallahu wa ni'mal wakiil xasbunallahu wa ni'mal waranaga meeshan ku yaabaan fadhiyaa meesha aan ku yaabay aan fadhiyaa Soomaali Maxamedey أنا ماشان كويا ما فديا إلهه ونجقبه أو إلهه ونجقبه أو وحي حماة السماينا يا ربي أبطأ بناك كان سيد كواس كله هلاقبته أو هلاقبته نجح حلو جد لا يا هان مغرب نجح حلو جد لا ما أهانه توري ولي بإنده هلو جريد أو هلو جد له والله بالله ساكت ضاع وحي كمر معين تتكهدين جور صامرين ما حنقول تأيسن جور صامرين ما حاول يعني نجح حلو جد له هذا نجور صامر نجح وهروش هرعنا وحيل تقفك دوس جور صامر سدات انشاد إنه قلفت أو مع سياسته قفك دوس جور صامر أو مع سياسته مع سيدنا أورالك سدات انشاد إنه قلفته لكن مدانو كله والله من معقولة ما أهان مدانو من معقولة من حد كب حسن بأهان أعوذ بالله من الشيطان ورما يقع عنق أركيس ودهس وحن عمل أساس ماسد ورما يقع قفا مانجاوا في سنة ورما يقع قفا عندها لقدم باجنايا ورميقا قفا دقنك laga dhimanaya war ilaahay ka cabsada Soomaaliya baa halowdeene war dibkan magaalada uu ka dhacay iyo wadankii uu ka dhacay ha ka kacaan ha ka banaan bixeen wallahi oo billahi ha ka banaan bixeen oo ha ka kaceen heeta waxaan indhaha naga abiyusteen indhaha leena ka abiyuseen indhaha naga abiyusteen maxaa telefoonada nagu haysamay idab darada markii hore loo duubay oo loo duubo telefoonka loo qaato waxay in la faafiyo markii hore idab darada telefoonka loo qaato loo duubay ayaa waxay ahayd in la faafiyo waan la faafiyo afarta korona waa la gaarsiiyay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim asxaabteeda qaaliga anagu halkaasaan warkaas kaga haraaya bal fiidiyowgii labaad gabadha asma yariisay ahayd asma yar ahayd ayaamaha ka social media cabanaysay bal adiga adeerkeeda muxuu yiri bal ila dhageysto ila daawada asma Ismail Abdirahmaan bal leeyahay ana adeerkeeda baan hayay Abdirahmaan Xasan baan hayay ila adeerkay walaalkay baa dhalay marka asmi waxay gabar yar oo arta shaqo soo korto ku dhalatay aabeed baa soo kariyay oo maartay hayay iyada laba inay walaalihiin wax barashada way dhameeyay quraanka oo way xifdiday iyada isaga soo kariyay marka iyadoo inta weyn oo dhowr jira ayaa waxay tiri hooyadii baan tagay Hargeysa tagay markay hooyadii u tagtay Hargeysa tagtay hooyadii way soo celisay markay soo celisay nagu soo noqotay waxaan ku iska joogay meel aan tii
markii dambe hadda inta way noqotay waxa hooyada tagaya mar labaad bay ku noqotay laba saddex jeer bay nagu soo noqotay hooyada soo celisay ku hadlayaa ama wadaadka wuxuu ku hadlayaa gabadhaanaytu waxa ay sheegtay been inay yihiin waxaan rabaa inaan ku dheeraada mar raba hal iyo laba raba inaan ka dhaho wuxuu sheegayaa gabadhan waxay sheegtay inay been yihiin oo waxba ka jirin ee ladnaan qabtay ee aabaheed soo korsaday ayna wax dhib qabin uu sheegayaa museyga horta gabadhaanayto wax kasta ay sheegayso afkeeda ay ka sheegayso aabaheedna uu sheegaa adeerkeedna uu sheegaya in ayagoo saddex laba inan laba wiil anigu inan ma aqaan laba wiil iyo ayada uu aabahood haystay soo wada korsaday oo saddexaas aabahood haystay inay kasoo fakarayso marna Hargeysa imaanaysay marna Itoobiya aadaysay marna Hargeysa imaanaysay marna Itoobiya aadaysay inay cida qaraabo la joogtay inay waxaan ku dhahay markii dambe ay iska wareegayso hadba cid u tageysay horta museyga hadalkiisa waa laga dhadhansanaa wayna ka muuqataa oo gabadha hadalkii sheegaysay waxaan ku dhahay way ka muuqataa oo way ka muuqataa laakiin hadalkaas hadan aniga qiimeeyo oo wadaadka hadalkiisa aan qiimeeyo waxaan la rabin inay gabadha totally minta hadalkeeda ama dhibkeeda ama dhaawaceeda ay banaanka keento war qofka bili aadanka inuu dhibka asaga uu qabo banaanka uu keeno mararka qaarkood caafimaad ay u noqotaa hala yaabnina Soomaaliyeed haddaad aragtid qof baq ku hay oo hadlaayo oo balaayo falkinaya haddaa aragto inay caafimaad u tahay la arkaa hadduu hadalkaas isku xiro oo la aamuso oo shib la yiraahdo inuu dhaho la waasho dharka dhigtaaba la arkaa marka inuu qofku hadalka iska saarno energy iska saaro warka iska saar dadka la sheekaysto wixii dhib ku dhacay loo soo bandhigo la yiraahdo raali aho mararka qaarka wallahi caafimaadkaaga kamid ah ya laakiin anaga Soomaalida nasaas ma fahansanin waxaan leenahay a'uudu billah aamus wax qari war inta wax la qarinayo inta wax la qarinayo inta wax qarinayso waa inta caafimaadka qabto ya laakiin stress-ku ku kaabato stresska kaabato aad maxaan ku meel laga soo galay aad garan weydo waa ka shifay waxyaabo badan ka shifay aniga saan dareemayo cunugtaana horta dhibkan uu ku dhacay ilaahay kuuma samadiiday qof walba uu sheegaya dhibtaan inay ku dhacday laakiin dadka waalidka mararka qaarkood ilmaha dhibtu ku dhacayso waxa laga yaabaa dadka waalidka inaysan waxba ka soo qaadin ay saqaymeenin ay wax normal u arkaan cunuguna uu arka serious inay tahay xaaladaas oo aad u daran yahay uu arko waalidkuna uu arka mararka qaarkood hawshaas ay hawl normal ah ama wax normal uu arko marka taasaa keenayso in cunuga iyo waalidka isfahmi waayaan aniga waalid walba waxaan kula talinahaa oo ama kula talinahaa arinta hadda kor kama soo hadlin haddana wadaadkan dartiisa inaan ka soo hadlo igu kaliftay saxaabtida qaaliga aan horta gabadhaasayto waxa laga sheegayo ama iyada ay sheeganayso haday ifan wax ku dartay xataa in waxaas wax ka jiraan waxyaabo badan ka jiraan aan dareemayo ama ka muuqato ama sida ay cadeynayaan aabaheed iyo adeerkeed buu cadeynayo marka hooyo kasta waxaan kula talin lahaa inay cunugeeda haysato markastana waan dhahay hooyo kasta inay cunugeeda haysato especially gabdhaha gabar hooyo kama maaranto gabar wiil oo kala ma wiil wuu koraaya waa nin rag ah laakiin gabar markii la yiraahdo gabar hooyo kama maaranto gabdhuhu way hooyo jecel yihiin hooyana kama maarmaan wayna jilicsan yihiin gabdhuhu ma fahanteen marka inkastoo cunugu wiil iyo gabar hooyadiis uu ka maarmin oo ilmaha hooyada loo dhaamin haddana ilmihi way sii kala yihiin wiil iyo gabar markii la dhaho gabar waxa kugu soo dhacayso in qof nugul ay taa kugu soo dhacayso ma fahanteen marka asxaabteeda qaaliga kuma sii dheeraanayo fiidiyoga hadduuba naga dheeraaday channelka subscribe saar like noo saar waad ku mahadsantahay la joogistaada daawashadaada like-taada wax kasta aad iigu sibod garaysay waan kaaga mahad celinaya adiga i daawanayo isi share gareeya fiidiyoga asxaabteeda qaaliga kulan dambe xiiso salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala bye bye